لابو سدة أفر شن جوجي لح انت طوى الستات كما ديل امرك ترسل بواي بحساب من جوجنا هاي في رواية ربع كالي اخري ادول سبع لما كنت هلو ابي ها gabadheydii adeerka Navin ayaa Mareykanka ka soo socday hadiyad muxuu war kuugu soo qaaday sheeg maxaad dalbanaysaa nin anfaxaya la ii keen abo ya tan wax darantaa wax fiican ma sheegto gabadheed anteerada ka xunbay tan wax habeen wanaagsan oo kaliya xoogaa farxal ma lamaya waayahay habeen wanaagsan kaale meel fiican aba timid wadiina ninka sababta Allah ayaa u hadlo JK aldeerna ayaa u hadlo saalax dheere waa qasbaha ayaa u hadlo yacko Saudi aniga dheer lak ijilco yaa jilco baabjay yacko ya orod baabjay marayay aniga ciidan ila ka ciidan waaye inaana ku barbaaran moogtaa heesan soo xasuust inaan ku koolkooliyaan raba konton cunug ka dhalaan raba baby from your jigjiga adiga qalbiga ligliga caanaha kabo ma maqash أبا الصومال مكسيه ها بمبي ما كتمت ها واللي قام مقوسته ماي ماخي إلما دشنه شن لا لوبا يكلنا وشاكي واكبح أبا قرحلوغا هاي maxaad ay dadigana kiliga ma tayms wal wuri joogaane kaligeena maxaad qaban kartaa ii sheeg bal adiga run ahaanta beela tahay waan u dhashay taas inaan ogaado saxibtinimada labadeen naga dhaxaysa sababtoo jaceylkan isu bedelay ma rabtaa inaa ogaatid ha aniga koolkoolin in xariisaan weligay aanan arkin ayaa adiga ka arkay maxaan kugu qadariyaa quruxda malihida isla qaayo weynida waa sababtay dumarka iga daba cararaan maxay tahay sababta ii sheeg adiga qurux iyo foolxumo inta raadinaysa hawshaada ma biyeysa